xildhibaan barkhad jaamac batuun oo sidoo kalena ah afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu taageerayaasha xisbiga wadani ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada madaxtooyada oo la filayo 22ka sanadka soo socda inay Soomaaliland ka dhacdo. xarunta guud ee xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay shirkii bilaha ee fulinta shirkani waxa hogaaminayay gudoomiyihii xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ajandaha shirka fulinta waxa uu ahaa in guddidii qabanqaabada shirweynaha labaad ee xisbiga warbixin dhinacyo badan taabanaysa guddida fulinta xisbigu ay ka dhageysato warbixinta waxa fulinta xisbiga u akhriyay gudoomiyihii guddida qabanqaabada mudane Ismaaciil Yare waxa sidoo kale kaabis iyo wax ka bedel xeerka xisbiga lagu sameeyay xubnaha fulinta u akhriyay garyaqaan maxamed saalax oo laga ansixin doono shirweynaha warbixinaha kadib falanqaynta kaabista iyo wax ka bedelka xeerka lagu sameeyay waxa gudoomiyaha xisbigu afti codeed geliyay oo gacantaaga ansixinta wax ka bedelka iyo kaabista xeerka xisbiga xubnaha fulinta oo tiradoodu dhammayd 47 xubnood waxa cod aqlabiyada gacantaa ku ansixiyay xeerka kaabista iyo wax ka bedelka ee xisbiga la sameeyay xubno tiradoodu dhan tahay 45 hal xubin oo fulinta ka mid ah way diiday gudoomiyuhuna ma wacday waxyaabaha gaarka maanta cajiibka ku ahaa shirka fulinta ee xisbiga wadani waxay ahayd in maalin weyn u ahayd taageerayaasha hoggaanka qurba joogta laamaha dibadda iyo madaxda guud ahaan xisbiga inuu noqday maalin taariikhiya oo shirkii ugu dambeeyay uu hogaamiyay gudoomiyihii xisbiga aasaasihii xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha jagada xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waa maalin ku qoran taariikhda xisbiga waa maalin baaldahaba ka gelaysa shirweynaha qabsoonkiisu oo Britol ay naga xigto kadib wuxuu dalku galayaa marxalad kale xisbiga wadani wuxuu noqday xisbiga isku haynta dalka iyo dadka wuxuu noqday xisbi lagu soo hirto xisbi ballaaran oo kii u codeeyay iyo kii ka codeeyayba diyaar u ah inuu isku wado madax fara badan iyo mas'uuliyiin miisaan culus dalkan ku loo xilal kala duwan oo xukuumadeed soo qabtay haween dhalinyaro aqoon-yahan haldoor intuba waxay soo galayaan xisbiga wada hadallaa furmay waad ogeydeen si wanaagsan ba u furmeen si wanaagsanna waa ku dhammaadeen fariinta bartan ee maanta taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Soomaaliland loo soo jeedinayo anoo afka xisbiga ku hadlaya waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu waxay ku dhacaysaa waqtigeeda insha Allah waxaanu u soo jeedinaynaa taageerayaasha xisbiga waxaan u soo jeedinaynaa shacabka sharafta leh ee Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashada madaxtooyada oo fartooda ay ku cumaamadaan hogaamiye horseedi karaya horumarka Soomaaliland maanta sanad 4 sano buuxsamay oo shacab badani fartooda dhexda ay ka qalinayeen laakiin waxa bilaabmi doona 5 sano oo shacab badani fartooda malab ka leefi doonaan insha Allah بعد صحافة Somaliland iyo cid kastoo bartan joogtaba waxaan ugu mahadnaqaynaa say noogala soo qayb galeen intaasuu shirka jiray daarnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inoo shirweynaha iyo shirweynaha kadib oo doorashadii madaxtooyada dalku galayo komishanka doorashooyinku waa diyaar dalalka dunida ee naga taageera doorashooyinku waa diyaar dawladdu waa diyaar xisbiyadu waa diyaar ballankeenu waxa weeyaan doorasho dalka u horseeda horumar
inaynu wada diyaar garowno. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa